waxaan ka hadlaynaa laba xanuun maskaxeed oo bini'aadamka ku dhaca mid waxaa la dhahaa dissociative disorder waa xanuun maskaxeed bini'aadamka ku dhaca oo qofka waxaa qaldamaya xusuustiisa aqoontiisa iyo perceptionkiisa isagii baa kala go'aya isagii baa kala habaabaya micni waxa galaya qalad maskaxdiisa si u joogo oo qaldamaya qaladkaas maxaa kala go'aya xusuustiisa dhumaysa marbay dhumaysa aqoontiisa dhumaysa awareness and perceptionkiisa dhumaya wixii ku wareegsanaa wuxuu yaqaan waxba kala habaabaya wixii qofkii xanuunadaas hayto maxaa keena sababtu dadka bini'aadamka ugu dhaco maxay tahay wuxuu ugu dhacaa qofka markuu korayo maskaxdiisa waxaa la rabaa inay korto si wanaagsan cunugu inuu u koro uusan dhibaato la kulminin intuu koraayo hadduu dhibaato la kulmo cunug waa dhibaato markuu weynaado waa dhibaatoonaya marka xanuun maskaxeedkaaneeto waxaa keena DDD la dhahayo waxaa keena chronic physical hadduu cunug markuu korayo ku dhaco cunuga hadduu chronic physical uu ku dhaco wax la yiraahdo ishak diritaan joogta jirkiisa physicalka waa jirkeenan haddaan markaa yarayd qofkii ku korinayo ama hooyada ha noqdo ama aabaha ha noqdo ama eedada ha noqdo ama qaraabaha kula noqdo intaad koris haddii dilitaan joogta lagu suubiyo qofka jirkiisii markuu weynaado dhibaato ku dhacaysa maskaxdiisa waxa kale ma aragtay keena psychological trauma wax la dhahayo dhibaato maskaxda xoog kaga dhacaysa intaad yar tahay dib badan oo lagu geysto cunugu markuu yar yahay haddii xubnihiisa taranka dhibaato loo geysto oo loo xog sheegto gaar ahaan gabdhaha ku dhacdaa oo la farxumeeyo intuu yar yahay oo qof ka xoog badan intuu u yimaado suurab uu isticmaalo cunugii awood isaga celiyana uusan lahayna taasna way keentaa xagga xubnaha taranka dhibaato ka timaado qof loo geysto yaa ku geysanaya dadkii ku hayay dadkii ku koriyay haday dib ku geystaan oo dhinaca xubnaha taranka ah mid kale waxa waa emotional abuse haday kugu dhacdo dareenkaaga hadii dib loo geysto dareenkaaga maxaa dib loo geysan karaa dareenkaaga dib waxa loo geysan karaa markii lagu caayo markaad yar tahay caay joogta ah waad fool xun tahay sanka waa yar yahay qof xun baa tahay damiin baa tahay waad jilicsan tahay waa madowdahay gabadheeda kale heblaha ka fiican wiilka heblaha ka fiican ama qof qaraa markii lagu geeyo ku yiraahdo ma tihid intaad yar tahay maskaxda way dhaawacaysaa micni qofku wuxuu ka dhaawacay physical oo jirkii ah maxaan ku raahdaa sexual oo ah dhinaca xubnaha taranka inuu ka dhaawacmo intuu koraay iyo markii maxaan ku emotionalka laga dhaawaco la qalbi dila dhahan Soomaalida qalbi jab lagu subiyo cunug intuu koraayo dhaqan ahaan waxaan u leenahay hooyada ibn inay ku caydo Soomaalida eedii adeer waxa ka soo tag tii ku dhashay inay aad ku afxumayso iyadoo dhaqan ay noo tahay anaka oo waalidku waa jilicsan tahay waa madowday kana tahay kaasa tahay damiin baa tahay ilmihii la kala fiicineeyo halkaas waxa ka raacaya qalbi jab marka qofkii xanuunkii markuu weynaado maxaa ku soo baxaya waxa ku soo baxaya dhowr xanuun baa markuu weynaado ku soo baxaya mid ka waxa waa dissociative amnesia ilowba ku dhacaya say wuxuu ilaawaya suu u joogo meel u jooga garan weynaayo qofkii wuu is ilaawaya memory-gi wax kaga dhacayaan maskaxda xaqi waxa laga inuu iska baxo albaab ka baxo iska socdo maanta dhan meel u socdo meel kale ma garanayo waxa dhacday gabar hameen dhan magaalada dhex mareysay isli ordayso hooyo intay guriga furtay intay albaabka iska furtay ilmihii oo jiifay albaabka boodo baxday hameenka dhan way soconaysay waxay u soconaysay ma garanayso waxay soo miirsatay saacado dambe marka maxaa imaanaya qofkii maskaxdiisa amnesia inay ku dhacdo marka waa waqti gaaban waqti dheer wax soconaya ma aha waa mid kale waxa ku dhacaya waxa la dhaho dissociative identity disorder waxa ku dhacaysa waxa la yiraahdo maxaan ku raahdaa ishak identity-ga ka dhumaya wuxuu yeelanayaa meetna maxaa dhahaa multiple personality yeelanaya wuxuu la soo baxaya magacyo fara badan aniga waxa la dhahaa xaawo iyo wiigi hore ama bil xaawa la dhahaa xaafad kale aan tagay caashan la baxaya mid kale aan tagay waxa la dhahaa cabdiyo mid kale tagay magaalo kale tagtay dana magac kale asu taqaanaa saas hada waxa laga shan magac inaad leedahay hal gabar baa tahay shan magac aad leedahay shan waxa leedahay history oo kala duwan shan history oo kala duwan hadii lagu weydiiyo waxa leedahay waagan joogay maxaan ku raahdaa ishaq xamar aniga caasha la dhihi jiray sheekadaydu saas ee waxaas ku koray waxaas ku noolaa maalinta banayro ba imaanaysa magac kale la bixaysa haddana qofkii markii isma yaqaano isaga naftigiisa oo dhowrka magac la baxaayo waxa laga yaabaa magacaas heblo inuu ku yaqaan magaalo hebel laakiin ma uusan garanayn maanta
inuu isgaranayn baa laga yaabaa qofkii waxa laga yaabaa qofkii inuu isgaranaynin oo maxaan ku iraahdaa oo mid wada wiil u yahay kale wiil cali la dhaho inuu joogo magaalada maxaan ku iraahdaa Kismaayo oo balwad leh lahaan jiray Nairobi mid wuxuu noqday wiil wadaad ah marka ma garanayo wiilkaas suma qaba isagii Nairobi markuu jaa wiil wadaad tukada soo haystaa oo isu yaqaana oo balwadi aan ku jirinin marka maskaxda baa qaldamayso qofku waxa dhumaaya identity-giisa waa ka dhumaysa taasna waxa la dhahaa DI disorder mid kale waxa waa dissociation diffuga la dhahaa fuga qofka maxaa ku dhacaya saaka shaqaad aaday ama guriga ka baxday tikada goosanay albaabka ka baxaysa waxaad ka deganaysaa Ingiriiska hadaad waxa ka deganaysaa maxaan ku raraa Boosaaso waa dhaqaaqday iskama warqabtay marka dhaqaaqaysid qofku waxba ka carraya xanuun baa meel ooga dhagan wuu tagayaa markuu tago waxa laga yaabaa markuu qofkaas soo carro Soomaalidu waxay dhahaan hebel waa la kabtuura waa la sixiray idinka dawaayiratiin dhaqanka hebel soo jooga albaabka bax waa la kabtuuray sixir bay aaminsan inuu ku dhacay kuma dhicin sixir waxa ku dhacay xanuun maskaxeed wuu carraya qofku wuxuu tagayaa maxaan ku iraahdaa magaalo kale waxa laga yaabaa markuu magaalo kale tago 2 week 3 week inuu soo miirsado waxa laga yaabaa inuu soo miirsaninbo oo reer kale iyo adduun kale iska magac kale la baxo hadana reer kale isaga darmadabo uusan dadkiisa soo xasuusanin 2 sano 3 sano kadib inuu soo xasuusan baa laga yaabaa laakiin qofka maxaa ku dhacay gaari baa lagu sixray oo dhaqaaqaya maalin kasta waa sii socdaa laakiin xiska markuu soo noqdo waad soo noqonaysaa anu waxaan arkay dhowr qof oo hooyooyin inta iska dhaqaaqa maalin Mombasa maalin Nairobi maalin xagga markii ay 2 week 3 week joogto waxay soo xasuusanay ilmo inay dhashay oo ilmo ka soo tagtay bay soo xasuusanaysaa maxaan ku iraahdaa wuxuu u kala baxaa intaas waxa kale oo jirta mid la dhaho deep personality disorder qofkii as aqoon weynaa naftigiisa anoo halkaan fadhiis ma garanayo inaan dhakhtarada ahay mis xasuusanayo qof kale baan noqonaysaabo isma garanaysidbo war magacaha hadii lagu dhaw waxa leedahay ma aqaan magaceega maxaa ahay ama is garanaysidbo waa mid kale taasna oo qofku waxa ka dhumaysa isaga as dhumay kaligiis mid shanaad waxa waaye derealization taas waxa waaye Soomaalidu aad u taqaan waxa la dhahaa dayow hebel waa dayow soo mina maqalin maanta intaan ka soo baxay gaaris lodge markaan jidka soo istaagay waxaan bagaran waayay gurigaygii dad badan arkaysa ku dhahay ani gurigay maanta waa ka habaabay cabaar markaan taagnaa soo xasuusto dad waxa jira dadka waaweyn hadda marka qaar ilmanimada horta badi timaada laakiin dadka waaweyn hadii dagaal dhaco waa ku imaanaysa sababtu ay noqonaysaa hadii najro saas dhaco dhibaato gariir adduun haduu kharaabo oo dib xoog limaado dadka waaweyn saas ugu dhacda laakiin dadka yar waxay u badan tahay yaraanta inay ku dhacdo marka shantaas nooc ayaa jirta oo la dhaho maxaan ku raadin dissociative disorder sababaha keenana waa idin sheeg wax dhaxalana ma aha maxaa marka qofkii ii sheeg maxuu qofkii ku dambaynayaa qofkaas dhibaatada ka imaanayda complication-ka muxuu noqonayaa wuxuu yeelanayaa qofkaas maxaan ku raahdaa waxa laga yaabaa dadka xiriir fiican u sala lahayn oo la dhaho qofkan horta isaga muxuu yahay maxaa ka qaldan walaa waa lama miir ha iska dhaha dil Soomaaliya iska hadal badan tahay in la garan waayo wax qaba koo inuu dad hadii kale wuxuu yeelan wax la self inuu isdilo isaga dad jeexjeexay ma aragtay mid inta qaata jirkooda gooynaya timahooda rifaaya aan dhaxaas darsiga la dhiibaa kuwa timaha rifaa jira kuwa isgoga kuwa waxbay la imaanayaan waxa laga yaabaa inuu isdilo waxa laga yaabaa xagga xubnaha taranka inuu maaragtay iska diidabo oo naco waxa laga yaabaa qofka inuu alcoholist iska noqdo waxa laga yaabaa inuu soo raaco depression anxiety wax la dhaho eating disorders hudud inay ku xumaato shantaas cudur waxa waaye shanta cudur oo maxaan ku iraahdaa dissociative disorder ah ay u kala baxaan dadku xanuunkaas yaa arkay yaa la kulmay yaa maqalay xanuunadaas yeesha ku dhacday haye yaa damaadka aad noogu badan yahay Soomaali hadaan nahay yaa magac badan la baxay dhowr magac yaa iska leh yaa ilow ku dhacay dhowr goor ah intiinaan mise ma aragteen wax qaba horta damaadka hadda intiina qofan damaada waa idinku yari aan waa ogahay haye su'aal assalaamu calaykum wa calaykum assalaam magacaygu waa Nasr Ali Daahir waxyaabo dhakhtarada sheegay horta ma sha Allah qayb kamid waa ay saameeyeen qaybna waxaan dhihi karaa gabdho badan maanta fadhi xishoonaa inay jiraan inay micna ku dhacday waxyaabo badan marka raba maanta inay faa'iido dad badan ay iga faa'iideystaan horta dayowga mase yani adoo meel ka dhuntay meeyana way igu dhacday laakiin waxa aan rabo inaan ogaado maanta waxay tahay xanuun maskaxeedka maamada ay sheegayso yani Soomaalida hadii aad xanuunsato qandho inay ku qabato ani marka hadda waxay sheegayso mar ay igu dhacday quraanay dadka saaraan
qur-aankana ilaahay waa daawo صح markaas aday stresskaas iyo buuqa iyo waxa lagu shiday in madaxa dana kaasi xanuuna laga yaabaa adiga ma tihid jin baa ku haya ku dhahayaan ya jin baa kugu dhace hadal qofka tahay sheeg laga yaabo darbi madaxiina iskaga garaacdid waxa sameeynaysa mararka qaar ma ogid hado marka soo naxdo waxa lagu dhaaya waa laga dhexqeeliyo ama wax hadleenin baa kugu jiro yani waxa ku haya marka ani ahaan waxa aaminsanahay hadeertan yani hore waxa u aaminsanahay hadeertan way iga baxeen maamadan waxa rabaa inay si fiican igu sharaxdo xanuunkaas ma keeni kara inuu qofka yani mararka qaar inta qandho qabato madaxiis darbi ku garaaco wixii markaas uu sameeyana uu san si fiican u oogeen mararka qaar uu ooynaay xataa ma dhici kartaa xanuunadu waa badan yihiin ma fahamtay qaar hadda ku sheegays waa ku jira dishaysanka oo dhaha qofku markuu kala go'ayo taas maskaxda waxa kala go'ayo iyo shaqadiisa baa kala go'aya حسكا كدوميا ما قرأت وقت جابن على كان أنك هاللين علامته كميته ما فهمت حسك وقت إنه كلا جا وقت جار إن ترى عليه هاي درب سوق راعي درب سوق جيستيد وكميت حنونا كهاللين كورنا دي مركز انت لو قبض دول كل جو علي قرآن لو صار أوقي لسيد قف كتا إلا وشاك هدي لو جدها أدنى وحنون سنت واحد أنت سامسك شيء كرتيد كوا بدنا أركب مركي نفتي نقبضتي وحباسك شاك نيدا هاي واحد سومالي مركز يكون قف كسوعة هاي جيمبا هاي جينكو واجرة ما فهمت جينكو واجرة لكن قفك وقت هدي قرآن لصار وكتجايا حنون مسكحات وح أوجد وين هاي وصار نقنا يا مان تدن هذا دبكس قبل كور هدي قرآن انت لو صار لو جدوا جين بيش كذا نقطة جين آذن قبل ودقنك هدي ودتك إسلامك ويجا وحدا ويستان واي ما فهمت دتك أنا ما ملك إسكاله waxa laga rab markaad xanuunsato inaad ogaato xanuun maskaxeed inuu jiro quraanka markii qofka xanuunka maskaxeedka qaba jinka qaba la saaro wuu baxaa jinku ishu way tagtaa sixirku waa tagaa all way baxaan laakiin qof wax ka dhaqaaqi waayo qaylinaya maalin kasta buuqaya xisku ka dhumay hadii la arko wuxuu qabaa qofkaas xanuun maskaxeed dadkii baa aqoon u lahayn dibta halkaas ka socotaa hay yaa kale su'aal يا ديو بهالمالين هذا أنت ما نديو ما ديسان أنا جواد ديو بهذا كور هبين لا بس وحنا كصوب بحي ماشي اللي يرى هذا أخان هوسبيتال بس عن صوب فوله وحارب أنا كنت دكتور شت كتو ألفك بس كي بسوي وحده دتشيا رما هذا هرتي استاجي ما جالس في عن مكة السيح كده محل قاعد له رأيه سجاشن إياه أفرت شنتي بقى هي markaan ramaado horta ugu dajiyay meelan joogo aqoon waay totally qof aan la hadlay waxa kaale isli aaway baan iri isli aan dhex taagnaa aan meel ma jiro hadda wala igu qosqoslay sababtoo aniga ma aqaan meelan joogo ma fahamsani isli aaway baan isli waxa la waad joogtaa halkan waa halkeen iri meeshan waa ramaada leedahay waa fikay ramaada inay tahay arkay marka ramaada arkay xisku soo noqday ma fahamti marka waa wax normal oo bini aadamka ku dhaca mar kasta معناه أنا قف وين بهيرانتي أنا أبي هو السوق دبعت لما كل من لكن دجالنا صامري ما فهمت قفك وين وح أوكي أنا مركو نجوا ديساستر ما أما الدجال ورعه دي بدن بان السوق كله نواصل عرنا نواصل تمن دجالنا أرجنا حبض أرجنا دي بدن بان نوصل عاي تسوى كنيسة مركب بقالك بس إذا تندت قوادي وصومالي ذا وحي بس نقرنين وحصابتي وحيتها عذر كان عذر داوى لقفكي داوى للسينيات كسربي ولا السينية وقفكي مسكين بالو داوينا داوى وقاذنية قرآن كنا وهبويا إن ليس ساره وليس سار يا قرآن كين وداودين وشفادين هذا والسجين أصابته ضد وحق الميقانان الوقت بين الوجيه وحي ما بنقانه أنا نيجي نجد القرآن كان جيسنينا وداو لكن مركا عادي بسكون ويدت صون نقنقو وحي مركا صون نقنقدان ود بسكون ويدت مسكحة أرك هذا وقف كلا أرك وحي إننا مسكحيدين هاي waxaan aragnay hadda qof qaba deep personalization wiil yar aaba ma lahayn hooyo ma lahayn maxaan ku raahdaa wuxuu ku soo koray nolol adag maalinta wuxuu yiri aniga bishkileet wata oo bishkileetigii wada aan waxa is arkuu yiri ana halkaas marayo bishkileetigi qof kale saaran hadana yiri maskaxis waa kala go'day halkaan uu marayo bishkileet wada hadana wuxuu arkaa soo bishkileet wada halkaas marayo qiyaas marka sabab uu qoray qofkaas argagaxa ku dhacay uu yaabaya xulay maxaa ka qaldan وأنا جوا إكاس وسجيدا نين ديارة وأنا دكتور راعي وحير ديارة مكان برتنا كم عودين أيوه دكتور بقولتك أنا مكان دكتور مكان ديارة دوضه وحنس أركا أنا ديارة أنا جوا ده قف كلا وضه ديارة دي قف كلا وضه أنا جمود صوت صورة دكتور كور راعي
hawada markuu maraayo wuxuu yidhi diyaaradda ma wada ina deji nin kale iska wada ma wadaba diyaaradda ani iyo tuukugu gal dhaqtarka war hal marna deji oo ku baryaa hal mar cabaar kadib xisku soo noqday soo dejiyay markaan waxaan wax joogtaa hadaa aragto qof suu kula joogay baxay oo meeshiiba ka tegay oo meel kale ma aragtay u jeestay la soco qofkaas waa xanuunsan yahay hala yaabin yaa kale su'aal la weydiinaa waa gudbaynaa waa ku mahad celina horta wiig xataa ma dhamaani maalin hore aniga toonkan ka imaaday fo street kana imaaday Nairobi 15 sanaan joogay dadka intay fo street waa inta maxay naanka nagu daj gaariga la dhahay inta ku deg aba inta ku deg gaariga markaan ka degay meel aadan ba garan waayba waa iska istaagay sigiska igeen gabar ku dhawe igees inta waa gabadh ana iwaal rabtaa miya doqonimadeeda fiiriya dhinacan xaggan aaday masaajidkan eedkis midkaan aaday masaajidkan seeya maxaa haddana waa soo noqday waxaan imaaday taadka masaajidka si uu ila cadaaday meeshan waa batoonka meeshan caddana maxaa haysaan markii dambe soo u socday dhinacaasaan ka wareegtay guri shoo garoon la dhahay islaan dhahaysa gurigan shoo garoon la ma garanaysid miya meeshii cabbaar saan u taagna gabaraan garanaya arkay intee u socota abaa meelana dadka salaamay cidna kama aqoonin markii dambe alxamdulillah guriga ma dadkii aan la marmayba ani halkan haday ku deg maxay igu dhacsay gurigii markaan tagaan madaxa ay wareeray buuqi dadka dhan ay dhibay ma aqaan marka cudurkaas wuxuu ku imaan kar xanuunkaas wuxuu kamid yahay dimaad personalization ku kamid yahay diyogu kamid yahay dhibaato la kulantay ama yaraan ba dhib la kulantay ama adoo weyn ba dagaalada ishidooda qoorta ku galeen yaraantina wax lama kulmin yaraanti yaa soo koriya psychological trauma kugu dhacay meel kaaga dhacay meel baa dhib kaaga dhacay kolam meel un baa stress waxa waa strong stress ku dhacaya xoog baa kugu dhacayaan xoogaas maskaxda qaldaaya khasab hadduu stress xoog la kugu dhaco adoo qof weyn ah waa damaadaysaa waa is aqoon waayaysaa waxaa laga yaabaa inaad bas iska raacatid inaad gooso sida hooyooyinka qaarkood ku dhaca maalinba meel bay ka degaan intay dhaqaaqaan kuwa qaarad ka dega oo iska dhaqaaqa marka waan ku faraxsanahay inaad fahamtay xanuunka xanuun jir inuu yahay daawo inuu leeyahay taas maskaxda ku hay dhibaatadii keenta inay tahay stresska xoog leh iska ilaali sabab stress ba kuugu dhicin qofku inuu naftiisa ka taxadaraa stress inuu iska ilaashaa sababta maskaxdu uu dhaawacaya stress dib uu ku geysanaya markuu haddana uu noqdo chronic stress waqti gaaban lama rabo chronic soo noqnoqday waxaan damaanaynin maskaxdu way dhaawacamaysaa okay ما دمعت ياكل سؤال قبل